بسم الله الرحمن الرحيم gurigan waa gurigii ay degneed ayay saaqo oo 3 sano lugta midig misigta ka jaban muuqaalkan ayaa ka soo duubay bal waxaad ila daawan doontaan xaaladda ay ku nooshahay ayay saaqo iyo hooyo nadiifo oo gabadheedii oo labaduba ay sirqan yihiin guriga labada qol oo kirada ay degan yihiin magaalada way ka baxsan yihiin dhanka koonfureed ee magaalada Garowe ay degan yihiin muuqaalkan ayaa rabaa inaan gudaha ula galo hooyo nadiifo oo ah gabadha ay dhashay iyada lugta ka jaban 3 sano xaaladda ay ku nool yihiin wallahi ma aha mid lagu daawan karo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogan wax looga baahan yahay inay u naxariistaan labada qol caruur agoon ay haystaan qolka caruurta seexata qolkaana ayaa lagu hayaa 3 sano jaban muuqaalka dad aragtaan idinka ayaa ka naxay guriga ay saaqo ku jirto waa kan qolka ayaa laga soo galaa irida hore waa ta ayay saaqo watana guriga ay ku nooshahay waa bulukeeto waa 2 qol waa kiro $100 ayaa laga qaadaa sidaas ayuu u egyahay ma yaalaan agabkii kala duwanaa lagu xanaaneyn lahaa ayeeyo saaqo biyo iyo baad mala sida hooyo nadiifo ay noo sheegayso layr ma laha muuqaalka xataa waa ka arki kartaa meel layr lagu xiro ma laha waa tirniigii guriga ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax u qaban kara laakiin ummadeena islaamka muslimiinta ah ee Soomaaliyeedna waxa looga baahan yahay inay xataa wax u soo qabtaan waa ta hooyadeed ay dhabar ku riixaysa ayay saaqo waa ka xaaladeed waa sidaas bal waxa baan rabaa inaan ka weydiiyo hooyo iska aamus ummadda islaamka ah iyaga wax ku qaban kara hooyo marka hore hooyo nadiifo hooyo waxa rabaa hooyo marka hore waxaan ka rabaa waaya hooyo marka hore bal xaaladda ayay saaqo iga war maxaa ku dhacay maxaa helay way jabtay salaanto haye halkaas ay ka sii bixatay haye iyadoo uligu socoto ha oo aan duniba ka warhay haye oo iiladantay halka ka dhacday haye way duusho halkaas ku duushay haye markay duushayna misigta kala baxday haye misigta dheer maaragtay ha misigta subhanallah saas oo kala baxday misigta iyo lugta ha waa isqaban weyday laba jeer baa misanka ilaahay ka way isqaban weyday haddana xaqii dambe iyo saxaaxi iyo wixii dhan baa koo ayo iyo bahalka huurka ah ee saaran tahay marka waxaan doonayaa إلى ليس تبرحوا لينحو وبيدي بلا أنكو هيو الله يقصو تبرحوا هاي مركا هذا حالدينا كورم حالدينا نولا كورم إلهي ينبنو فوفتك هاي يركينا اسكول بلا شبانجي أي جم قدير أرونتي marka hadda hooyo waarka waa jabanta 3 sano iyo ka badan saxaraha iyo see looga qaadaa saxaradii waa kan baalkii waa kan kalan qaada waa kan anoo gaboobay sida hoos kala إنا لله إنا لله هاي مركا أمضى إسلام كأكو داوانيسا كور يجي لفتقوضة محات قعد سنة هاي وعن قعد سنة يعني يسوع طبعا وعن بيت عن كوها إسلام تسوق كبير ما دول بيجي بحبول ليه أيه مقالة دينا واقفتي مقالة مركا سوى حقود مرتين لا أنا واني شوقنا وعن تعالى يو إنه يقص طبعا سيدي بيت عن كل ما يدي لها لا يقص عاوي ومسكوا يقع وهيدو يقعان وواحد دكتور كوجيو دولة هاي دولة ما لا حريرتون محي دولة نتر دولة وحنا لا حريرنا ده قلنا محسين تيسان لا حريرنا ما تمرنا نسيت تيسي ده بس مقالة الصومالية ومبالغة تيسي لما لي عشان وسعوني يا وحنا يقسي هاي بقل هاي بقل معها مركز هاي حالة وح ما لقى قبل كره هاي حالك تهدي لا ترى إيه وقت لوكتي ما سوى تصويري وقت هو لوكتي ويقول أنت هاي ما يداه إذا لا أركم الدولة الناس أبى ولا تسا ويقول لوكتي وقت هو يقول وقت أنت تاسيتا تاسو فللا تاسو ما كلا بحث تاسو ما كلا بحث هل كاسر لفتي شوكتا ثم عرفتي وعند دختركم جايو إلى نيروبي كيف على يجي مركز أنا ملهي بيد أنكم ما يدرك ويا سمانو نحي هاي إلهي ولو سميهاي
هو إلهي ولو سمي إلهي باكسوقات كله ومضى بيدي يا برا دونك كملهن عاديات وإلهي يقول بين مشيقيو عروسة شوي لمن هيا هو وحن هيا هو يلود يقول دايري سي هو يا أضبا ما سنتها شاف يا سن هيا وايه واحد حتى يقم قليل هيه وحا سمينا يا أنو نواوي بان في الدري عاديات وبلاش أنزل بروح برتين وايه هو يا أضبا ما سنتها وقارسيني أنتم مسلمين تبغالك داوانيسا أنت النحريست له وحن كعسنا هنا وحسوق بتان أيوة أركح حالة ده 6 سنة يكبر من مسكت بدح كتبان تاي سرير بيسارن تاي لوكتنا والله ما تسدي هو ينادي فنو شيء ها دينا عدبودنا waxa way xanuun baa jira marka hooyo macaan ka war adiga maxaad leedahay maxaa u baahan tahay waxaan u baahanahay hada la maxaa u baahan tahay wax dhakhtar wax la igu geeyo oo diyaarad la igu qaado waa u baahan oo lugta la iga soo gooyo maxaa u baahan tahay lugta la iga soo gooyo haye maxaa u baahan tahay waxaan u baahanahay inay kabo haye wax la taro dawladdu caawisa diyaaraddaas inay caawiyo ayaan u baahanahay waayahay aad baa u mahadsan tahay aad baa u mahadsan tahay ummadeena islaamka ah meel kastay joogaan ilaahay ha u naxariisto hooyo nadiifo iyo aysaaqo ilaahay baa u maqan cid uma maqna marka waxa loo baahan yahay muslimiinta muuqaalka daawanaysa in la soo caabiyo waxa inoo balama in wax loo qabto hooyadaas oo guri ay leedahay degto hadii wax loo qaban waayo xataa waxa fiican in meel degan tahay iyadu ay leedahay ay maaragtay ay joogto muuqaalka intaas ayaa ku soo koobaya ilaahay baa u naxariisanaya ummadiisa annaguna waa dadaalaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh